halkan waa deegaanka loo yaqaano galciile wuxuu 15 kiiloomitir u jira degmada Ceelaf Weyn isagoo kaga beegan dhanka galbeedka waa degmada baaxadda leh waa Ceelaf Weyn telefishinka caalamiga Bulsho TV ayaa u kurgalay deegaankan oo si weyn uga qayb qaatay soo tebinta iyo baahinta dadka ay abaaruhu halakeeyeen dadkan waa kuwa ka samaystay deegaankan kaam kadib markii ay xoolahoodii ay haysteen ay galaafatay abaartii darneed ee ka dhacday gobolada bari ee dalka waxa duuya ma haystaan wehelkoodu kaliya waa boolasha awoodda bacadka daran ee qorraxdu jarjartay markaad aragto dadkan waxa ku muuqanaya xaqiiqaha dhabta ah waxaana isbedelaya muuqaaga iyo maankaagii nololeed hadallada murugada xambaarsan ayaa ka mid ah inay ahaayeen dadkii hayaanka dheer u galay deegaanada Puntland walowse aanay dadkani xoolo kala soo noqon waana midda kaliya ee duruuftu ku kaliftay inay samaystaan kaamkan raxmaadka alle deegaano badan oo isla gobolka Sanaag ka mid ah wuu maasheeyay waxayse dadkani u baahan yihiin gurmad samata bixineed maadaama xoolihii noloshoodu ay ku xidhneed faramaran iska soo taageen waana kuwan dadkii aanu kula kulanay isla deegaanka dadku dad xoolo haysta ma ahoyna male cuntaduna waa ku liidataa waxaanu u sheegaynaa wasiirada madaxweynaha Axmed Maxamed Silaayo waxaanu u sheegaynaa inuu si degdeg ah wax ula soo gaaro waxaanu kale u sheegaynaa degmada Ceelaf ama hatayin oo dadkan waa dad imika ururay dadkii hore waa la khadeeyay waa khadeysay dadkan dad khad hore ku jira ma waa dad imika ururay oo imika loogu soo ururiyay meesha dadka waxaanu leenahay dawladdu si degdeg ah wax ula soo gaaro waxaanu halkan aan joogno dadkan waa dadkii markii hore galay buuraleyda ee la galay xoolaha waa mid ay ka dhamaadeen oo mid wax ay ka siiyaan waa dad aan meel wax qoraala iyo wax aan meel ay cid kala kulmeen hore oo dawladda ama hay'adaha midna aanu jirin sidaa darteed waxaanu codsanaynaa waanu halkan baaq aan uga diranaynaa xukuumadda hay'adaha caalamiga mid dawliga iyo mid bareefadaba waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha dawladda madaxweynaha waxay haytooy dadka xooluhu ka dhamaadeen ee caydha ee halka tuban meesha magaceeda wax la yiraahdaa galciidle waa degmada Ceelaf Weyn waxay haytooy nin wax ka haya iyo nin wax ka haynba xooluhu waa xayeesh wax laga cuno male wax laga qasho male wax laga ibsado male dadka sida iyo darteeda ayaa dadku meesha u tuban yahay maxay haytay hay'adda iyo dawladda ayay maxay haytay u tuban yihiin oo si degdeg ah wax uga doonayaan qaar baan gaadiid lahayn dusha u gaadiida maxay haytay hoy mastaan aqal male bacaa u wada taagan qaar baan bacna haysan waxay sistaan haysan ma jirin gurmad samata bixineed oo soo gaadhay dadka deegaankan waxayse baaq codsi qayladhaana u direen xukuumadda talada dalka haysa guddida abaaraha heer qaran heer gobol iyo heer degmaba hay'adaha caalamiga qurba jooga iyo ganacsatada dalka waa Maxamed Caydhaf wararka Bulsho TV degmada Garadag